بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله waxaan jeclahay mas'alo oo ku saabsan doorashooyinka aan wax ka iraahdo. Mas'aladaas waxa waaye qabaa'isha banaadiriga ay kuraasta ku fadhiso oo hadda beryahan suuqa la soo geliyey in la bedeli doono. Marka mas'aladaas waa maqlay, laakiin suuqa kuma soo gelin si official ah. waa wax ay burburinayaan sidaan aaminsanahay dadka jecel isbedel noocaas oo kale inuu dhaco, wax kale ma aha. awood qaybsiga beeleed ee 4.5 muddo-xileed uu leeyahay. qabaa'ishaasna waxay ku xiran yihiin muddo-xileedkooda wuxuu ku xiran yahay inta oo 4.5 ka shaqeynayo. marka maadaama hadda 4.5kii uu noqday mid haddana mar kale shaqayn doono, in qabaa'ishaasi muddo-xileedkooda uusan dhammaanin. qabaa'ishaasi muddo-xileedkooda ma dhammaanin, dowladna uma socoto inay beddesho. waa beddela haddii tiraahdo wadda meeshay u maraysaa dowladda. wadda meeshay u maraysaa waddada ay u mari lahayd waddo oo sahlan ma ah. sababtoo ah waxay ka diiwaan gelisan yihiin UNSOM, waxaa la yidhaahdaa urur goboleedka IGAD, AMISOM, African Union, maxaa la yidhaahdaa European Union. ururadan ururadan waxaa waaye ururadii loogu talagelay Soomaaliya inay dusha ka eegaan oo ay ka caawinaan waxyaalo badan si Soomaaliya adduunka ula jaan qaadi lahayd. safaaradihii adduunka markaas uu imaan lahaa meesha, heshiisyo caalamiya Soomaaliya uu heli lahayd, deymanka sida looga dhaafi lahaa, cunaqabateynta hubka sida looga qaadi lahaa. marka arrimaha noocan oo kale qabiilaa meesha laga bixinaa, qabiil kale la gelinaa. si kale kuma imaan karto, musuq maasuq ma ahaane, si kale kuma imaan karto. wax officialna ma aha, dowladna uma socoto taas. tan kale waxaan arkay waxyaalo oo laga fiican yahay, khaasatan doorashooyinka in laga ilaaliyo u baahan. laakiin dad oo ka mid ah civil society ay ku kacayaan oo ku saabsan in kadeed la sameeyo, in musuq maasuq la sameeyo, in cabsigelin la sameeyo, in handadaad meesha la keeno. clip waxaan arkay oday dhaqan banaadiri ah oo fikirkiisa ka hadlay, fikirkiisu ka dhiibtay, fikirkiisu ka hadlay arrimaha la xiriira doorashooyinka, khaasatan 11 xubnood oo ka shaqeynaya doorashooyinka, khaasatan banaadiriga, sida lagu soo magacaabay iyo sida lagu soo dhisay. marka fikirkiisa ha cabiro. waxay ku dhisan tahay valuega oo democracy ku dhisan tahay. Soomaaliya hadda waxay sheegataa dowlad democracy inay tahay. valueska democracy maxaa ka mid ah? values democracy waxaa ka mid ah xoriyat tacbiir wax la dhahayo. qofka inuu xor u yahay inuu fikirkiisa cabiro aa ka mid ah. marka clipkaas aan ka hadlooyaa waxaa ka daba yimid clip kalaa ka daba yimid oo odaygii uu leeyahay maalin hore wixii aan ku hadlayay wax qaldana aheyd, waxna kama jiraan. maxaa la yidhahdaa anigoo xanuunsan aana hadal la ii yiraan hadlay. marka labada clip markaan isku fiiriyey waxa aan arkay oo ii muuqatay clipkii dambe in odaygii kadeed uu ka muuqday, argagax uu ka muuqday, cabsi uu ka muuqday aa ii muuqatay. waxyaalahaasna waa waxyaalaha oo doorashooyinka ka mamnuuca ah waay. hay-adaha amniga iyo ammaanka ku shaqo leh inay wax ka qabtaan oo bulshada aan loo ogolaan dhexdeeda inuu ka shaqeeyo dhaqan noocaas oo kalente. waxyaalahan hadda aan kasoo hadlay oo ku saabsan maxaa la yidhaahdaa musuq maasuqa, iscabsigelinta, maxaa la yidhaahdaa iskadeedka iyo waxyaalahaas oo kale munkarkay ka mid yihiin. caaqibada waxaa iskale qofkii maanta salaada ooga oo zakada bixiya oo
maxaa la yidhahdaa munkarka hor istaaga oo maaragtay maxaa la yidhahdaa macruufkana fara. macruufka waxaa ka mid ah cadaaladda ka mid ah. aladiina in makkannahum fi lardi aqaamuu الصalaata waaatawu الzakaata waamaruu bilmacruufi wanahuu can ilmunkar walilahi caaqibatu lumuur. subxaanaka allah wabixamdika nashhadu an laa ilaha illa anta nastaغfiruka natuubu ilayk.